dhaawac isle oo dahabkoor iibshay oo hadii alla ku roon yahay hadii alla maanta ku soo xusuustay iyo ko Belgium jooga soo xusuustay ilmaha dhadadan iyo dhadigan ku dhacaya gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u dhashay deegaankan oo ku dhaqan dalka Belgium-ka ayaa deeq xoolo ah waxa ay soo gaarsiiyeen ciidamada xaq u dirarka deegaanka ee halkan ku sugan isla markaana cashirka u dhigay kooxaha qawaarishta talabadan ay hablaha Soomaaliyeed dahabkooda u furayaan si loo caawiyo ciidamada xaq u dirarka deegaanka ayaa waxa ay dhig cusub ku shubaysaa geesiyaasha qaranka iyo kuwa deegaanka ee cashirka u dhigay qawaarishta ugu horeyn waxa halkan ka hadlay nabadoon Fooxle oo wakiil ka ahaa gabdhaha ka soo jeeda deegaankan ee degan dalka Belgium-ka ariga yarka oo meeshan adigu arkaydaan gabdha jooga Belgium oo beesha macallin dhiblaawo ah ayaa waxay ugu tala galeen inay maalin dharaariyaan macawisleyda wacaysle maadaama ay dhibaato badan soo mareen iyo juhdi 3 sano ayay dhadadaan iyo oraadaan jiifeen dadkana ay ka xigin difaaca dalka una dhimahayaan dalkooda iyo dadkooda mushaarna aan qafu ku siin xusiistaas ayaa gabdhahaas ku soo xusiisteen Belgium ay joogaan waa gabdha yar waxaan rajaynaynaa inay naqato furihii wacaysle oo gabdhahaas fureen sidoo kale waxa deeqdan xoolaha ah goobta lagu gudoonsiinayay ciidamada xaq u dirarka deegaanka ka hadlay Abbas Nuur Sheekh oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Ceeldheer aan ka mahad celiyeynaa xoolo nool oo tiradooda la soo koobi karin ayaa waxaan nagu taageeray kuna taageereen dhalinyarada deegaanka beesha wacaysle ee degmada Ceeldheer aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sidoo kale waxaan u mahad celiyeynaa gabdhaha jooga Belgium ee beesha wacaysle qaasatan gabdhaha macallin dhiblaawe Cornel Maxamed Cali Culisow ayaa bogaadiyay gabdhaha ku nool dalka Belgium-ka ee u dhashay deegaankan kuwaas oo gartay in dahabkooda iibiyaan si ay u garab istaagaan ciidamada qaranka iyo kuwa xaq u dirarka deegaanka gabdhaha wacaysle oo dahabkoor iibshay oo hadii alla ku roon yahay hadii alla maanta ku soo xusuustay iyo ko Belgium jooga soo xusuustay ilmaha dhadadan iyo dhadigan ku dhacaya oo 3 sano halkan jooga oo ku dacas beelay oo ku dhar beelay oo ku kaba beelay oo hadii alla ku roon yahay naagahoodii iyo ilmahooda aan dib ugu naqan gabdhaha soo xusuustay oo Belgium jooga naftoor iyo waalidkood Allah cafiyo adduunkana fil nicmata Allah siiyo aakhirana fil jannata Allah siiyo aad iyo aadayna galabta anaga farxad weyn noo tahay waxaan kale u sheegaa wacaysle inta waxa soo gurmaday sacad gaalkacyo ka yimid soo gurmaday deeq keenay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud Saciid Maxamed Cabdulle Fayfle ayaa deeqdan xoolaha waxa uu kaga mahad celiyay gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u dhashay deegaankan ee ku dhaqan Belgium-ka mahad ka gaarto gabdho sharaf badan oo heer wacaysla oo ku sugan Yurub gaar ahaan wadanka Belgium ayaa u deeqay wiilasha macawisleyda ee deegaankan ka halgamaya mujaahidiinta oo dhiigooda hore qaarna ka shiiday qaarna maantay oo dhaawac yahay Allahu boogayaan leenahay ugu deeqay xoolo nool oo ah suugo gabdhahaas waxaan leenahay mahad ka gaarto sharaf karaamo korkiina haataan leenahay wixii aad soo dhiibteen waana soo gaareen haddaan nahay maamulka degmada waxaan rabnaa inaan galabta gacantooda ku wareejino macawisleyda ayax cali xasan oo kamid ah saraakiisha ciidamada xaq u dirarka deegaanka ayaa deeqda xoolaha gudoomay isaga oo sheegay in mar walba ay tabayaan garab istaaga dadka u dhashay deegaankan gabdhahan xoolaha noo soo dhiibay sharafay leeyihiin mahad waa ka gaarto waa gudoonay xoolaha ay soo dhiibeen si sharaf lahaan u gudoonay anoo macawisleyda ka wakiila magacayguna yahay dayax cali xasan waa gudoonay anoo macawisleyda afkeeda ku hadlaaya gabdhahaasna aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxaa saacadba saacada ka dambaysa soo gaaraya gurmad iyo garab istaag ay muujinayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale daneeyaasha kale ee degmadan Maxamed Cabdullaahi Cumar Wiire warbaahinta qaranka Ceeldheer